qaar ka mid ah aqoon-yahanadani oo aan kaamirada iyo mikrofoonka warbaahinta qaranka la dhex qaadnay ayaa sheegay inay ka xun yihiin mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud maadaama bay yiraahdeen in aan loo baahnayn in dalka Soomaaliya la geliyo qalqal siyaasadeed taa oo keeni karta deganaansho la'aan dhanka siyaasadda xilli lagu balansan yahay higsiga 2016 ka oo qeexaya in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xor ah waa kuwan qaar ka mid ah aqoon-yahanadaasi oo warbaahinta qaranka la hadlay. bismillaah waa Cabdiqaadir Cismaan Aadan waxaan ka mid ahay ardada wax ka barata dalka Suudaan ee Khartoum muddana ku nool ayaantan waxaan la soconay ama aan media ee saxaafadda kala soconay in mooshin laga hor keenay madaxweynaha dalka baarlamaankan uu keenay arrinta haddii aan ra'yiga ka dhigto waxaan u arkaa mooshinkaas in uu yahay mooshin aan waafaqsanayn isla markaana talooyinka dalka lagu burburinayo aan hanaan saxana loo marin geedi socodka dawladnimo ee 2016 la higsanayana ugu yaraan dhabar jabin kara. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed Idriis waxaan ka mid ahay ardada ku barata Khartoum jaamacadaha waxaan rabaa inaan fikirkayga cabiro ku aadin mooshinka laga keenay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud fikirkayga haddaan guba galo mooshinkaas waxaa ila muuqda aniga in uu Soomaaliya dib u celinayo waqtigan ma aha waqti muhiim ah in madaxweynaha mooshin laga keeno waqtigiisa iska dhamaada marka baarlamaanka waxaan kula talin lahaa inay bal على الأقل موشينكا كفير سودان يدوب سكول لابتان مادام برلمانكينا وقتي في السلمانية مدحوين وقتي في السلمانية دورشان دلك سودي يارنيو مفتعنا وقتيان وقتي يوردن مالين مدحوينها موشين لا كينو marka waxaan ku talin lahaa aniga labada garab buu soo jeedin lahaa saysta inay heshiiyaan isku imaado anaga runtii waxaan u aragnaa hadaan nahay aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee Khartoum wax ka barata inaan hadda munaasab ahayn in dawlad mooshin laga keeno waayo nooma muuqato in la burburiyo aqal dhisan waayo marka dawlad burburinayso waxa loo baahan yahay in aad leedahay ikhtiyaaraad ama waxyaabo aad si meel dhigtay haddii madaxweynaha la rido gacanta ma lagu hayaa madaxweyne kale oo xaaliyan matali kara dawladda waxa aan halkan u joogaa in aan ra'yigayga ka dhiibto sida aan u arko mooshinka haatan laga keenay dawladda uu madaxda ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud dawladdan haddii aan mooshinka aan ka dhiibto ra'yigayga waxaan u arkaa in uu habooneyn ama uu waqtigiisa taagnin sababtoo ah muddada u hadhan dawladda haatan ayaaba ah muddo gaaban waqtigu mataqaanaa wadankuna wuxuu u baahan yahay waxyaabo kale oo mataqaanaa lagu jeesto ama waxyaabo kale oo la qabto intii waqtigan dawladdan si dhacaysa mooshinkeega lagu mashquuli lahaa waxa daba u soo jeedin lahaa mudanayaasha wada mooshinka in dawladdan hadda jirta waqtiga yar ee u hadhay fursad la siiyo si iyada laftarkeeda waxyaabo ay ku andacoonayso mataqaanaa ay u qabato dad fara badan oo isugu jira aqoon-yahano siyaasiyiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyagoo intooda badan isku raacay in xilligan aan loo baahnayn in la geliyo qalqal siyaasadeed dalka Soomaaliya. Cabbaas Maxamed Nuur warbaahinta qaranka caasimadda saddex geesoodka ee Khartoum Suudaan.